riyooyinkaaga iyo hamigaaga iyo waxa aad ku haminaysa ha ahaadaan kuwa kuu qarsoon. Sheeko ayaan buug ka akhriyay. Buuggaasi waxa uu soo shabahaa sheekadii macallinkii cilmiga bulshada noo dhigayay, sida uu noo weydiiyey waxa aan mustaqbalka noqonayno. Sidaas la mid ah ayaa macallin ardaydiisa weydiiyey waxa ay jecel yihiin mustaqbalka inay noqdaan, waayo ardaydu waa kuwa ugu badan ee maskaxdoodu shaqaynayso. Fikirro badan ayay maskaxda ku hayaan. Macallinku wuxuu yidhi waraaqad waxaa ku soo qortaan waxa aad doonaysaa mustaqbalka inaad noqotaan. Qof walba wuxuu ku soo qoray waraaqada waxa uu doonayay mustaqbalka inuu noqdo. Macallinka hal arday ayuu fikirkiisa ka helay. Fikirku wuxuu ahaa ardaygu wuxuu yidhi waxaan jeclahay mustaqbalka inaan iskuul weyn dhiso, iskuulkaasi oo sanad walba lagu qabto tartanka fardaha. Tartankaas fardaha waxaa ka soo qayb galaya dadka taajiriinta ah, waayo magaaladaasi uu ardaygaasi degan yahay. Taajiriintu waxay jeclaayeen tartanka fardaha inay daawadaan. Isla fikirkii macallinka wuu qaatay, waayo waaye ayuu soo joogay macallinka. Waxba uu aruuray, iskuulka ayuu dhisay, tartankii buu sameeyey. Isla sanad kadib fikirka ardayga uu lahaa buu isticmaalay. Sidaas si la mid ah fikir walbo aad leedahay ha ahaada mid kugu koobnaado, waayo waxaa laga yaabaa waqtigeeda inaadan joogin. Haddaad qof walba u sheegtid qof waqtigiisa jooga ayaa kaa isticmaalaya. Markuu qofkii kaa isticmaalana halkaasi waxaa ku lumaya fikirkaagii iyo rajadaadii iyo hamigaagii.